barnaamijkeenan waxaynu ku martigelineynaa doctor cabdibaari adwaan oo ah qoraa caalamiya oo carbeed oo ku nool dalka Britain si weyna uga faalooda dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa bariga dhexe waxaana uu faalo dheer oo muhiim ka bixinaya xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa dalalka carabta qaarkood iyo wadanka Qatar. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الاستثنائي فعلا، لأننا في هذا اللقاء سنتحدث عن الأزمة القطرية المتفاقمة. أفقنا هذا الصباح من النوم صباح نبض ساكا وحينو كسو توصلي إن أي دالك على تقاركول حدين حدوده دي برقة كوي بضع iyo kuwa dhulkaba isla markaana ay safiirada Qatar u qabteen muddo 24 saacadood ah inay ka baxaan wadamada Imaaraadka, Bahrain iyo Sacuudiga. sidoo kalena muwaadiniinta u dhashay Masar, Sacuudiga, Bahrain laga joojiyay inay u dhoofaan dhanka dalka Qatar. muwaadiniinta Qatarna sidoo kale loo qabtay muddo 2 toddobaad inay kaga baxaan 4 wadan. si kastaba ha ahaato hadday ganacsi u joogeen, hadday caafimaad u joogeen iyo hadday maslaxado kaleba u haysteen, waxay ka dalbadeen wadamadaasi dalka Qatar inay ka baxaan isbahaysiga xulafada Carbeed ee ka dagaalanta dalka Qatar. waxayna arrintaasi ku soo beegantay iyadoo Qatar maalintii shalayto ay ku dhawaaqday in 6 askari oo ka mid ah ciidamadeedu ay ku dhaawacmeen dalka Yemen, iyadoo aan wadamada Carabta ee kale ee xulafada ku jiraan aan xitaa tacsi u darin. maxaa jira haddaba? waa maxay waxa socda? xaqiiqdii arrintu waa mid si degdeg ah u socota. waxaa laga dalbanayo hadda Qatarna waxay u badan tahay inay goyso dhammaan xidhiidhada ay leedahay ururada Islaamiga sida Ikhwaan Muslimiinka iyo ururada kale ee ay dalalka Khaliijku ku sheegeen inay taageerto. قطر أن تقطع علاقاتها بالكامل مع أي منظمات تقاتل في سوريا أو في غير سوريا. مطلوب من قطر أن تقطع علاقاتها بالكامل مع إيران. waxaa kaloo laga dalbanayaa inay si rasmi ah u goyso xiriirka ay leedahay dalka Iiraan, ayna taageerto xiriirka isbahaysiga la dagaalanka argagixisada Islaamiga Mareykanka ee lagu aasaasay magaalada Riyadh dhowaan markii uu soo booqday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. maxaa socda haddaba? Mareykanku waxay sheegeen waxay ku baaqday dalalka Khaliijku in ay dariiqadooda caadiga ah ku xaliyaan khilaafaadkooda oo ay wada hadal galaan. laakiin arrintaasi waxay u muuqataa hadalka Mareykanku arrin khatar, iyadoo loo filayo in 4 wadan ay Mareykanku u wakiisheen sidii loo idbin lahaa dalka Qatar. hadalka Tillerson ee xilligan oo aan dhinacna haba yaraatee wax eedayn iyo cambaareen u geysan ma loo fasiran karaa? waxaan hubaa inaanay suuragal ahayn in 4 wadan aanay go'aan noocaas qaadan karin iyagoo aan ogolaansho ka haysan dalka Mareykanka. haddaba ogolaanshahaasi ma yahay mid dhacay markii uu Donald Trump joogay magaalada Riyadh? sidoo kale ma la odhan karaa in ay ballanqaadka Mareykanka iyo ogolaanshaha ka heleen Mareykanka markii ay la galeen heshiis 460 bilyan oo dollar oo ay hub kaga iibsanayaan wadanka Mareykanka? ma la odhan karaa arrintaasi waa tanaasul? laakiin waxa socda waa inaynu ogaanaa. ma la odhan karaase arrintaasi waxay ahayd mid ay Mareykanka laga helay markii ay labada Maxamed bin Salmaan iyo Maxamed bin Rashid ay booqdeen dalka Mareykanka ka hor booqashadii Donald Trump ee dalka Sacuudiga. نحن نعرف من مصادر مصرية بأن التدخل العسكري كان أمسيا waxaynu ognahay waa in sarkaal ka tirsan dalka Masar uu sheegay in faragelin military oo Qatar lagu sameeyo ay tahay mid suuragal ah. زميل السابق وعضو مجلس الشعب مصطفى بكري oo ka tirsan golaha shacabka ee dalka Masar oo la hadlayay kanaalka af Carabiga ku hadlay al Carabiga
waxa uu sheegay in faragelin militari oo lagu sameeyaa Qatar ay suuragal tahay maalmaha soo socota waana ninka ka tirsan golaha shacabka sida weyn ugu dhow madaxweynaha dalka Masar Abdel Fattah al-Sisi golaha ciidamada ee Masarna xogaalka waa waxaan ognahay laba arrimood oo halka ka soo muuqda ka koowaad waxa uu muuqdaa in wadamadaas isku dayayaan inqilaab ay ka sameeyaan gudaha dalka Qatar oo kaasoo militariga loo wakiishanayo amaba ciidamada ammaanka amaba qof ka tirsan qoyska reer boqor inqilaabkaasi haddii uusan dhicin waxa iman kara faragelin militari xagga badda beriga iyo baddaba ah oo ay imaaraadka Bahrain iyo Sacuudiguba ku qaadaan dalkaasi Qatar waxaan filayaa inaanay suuragal ahayn oo aan iska fogeynayaa in inqilaab gudihii uu dhici karo maadaama uu ciidamada taliye guud u yahay amiirkii hore ee dalkaasi Sheekh Xamed si weyn gacanta ugu hayo أصبح مواليا بالكامل أو في معظمه للجناح الحاكم حاليا في قطر وأيضا الوزير الدفاع هو الأمير يا باندولونا لوضوا أيهين قوس كرر بقر له ولنجله الأمير تميم الاحتمال التدخل الخارجي وما هو الأكثر ترجيحا لكن أرنت صورة قلقاهي وفرقلين شيشية ودبدك كما دلك قدر الموقف خطير جدا ويدور نحو الأسوأ قطر الآن تجد نفسها بدون أصدقاء حتى تركيا أيضا طالبت مثل الأمم المتحدة بالحوار وحل المشاكل بالتفاهمات إيران أيضا قالت بأن أي مريكن كنا هبا يراتي مشيغن وحدة لحادنا أو أيغو قعنت لسوغليا حلقن قدر waxay u muuqataa saaxiib balaan dalka Turkiga sidoo kale isna waxa uu sheegay oo ku baaqay in wada hadal la galo Iiraan dhankeeda تصعيد الأزمة لا يخدم الاستقرار في الشرق waxay sheegtay in xiisada oo hor loo sii wada aanay maslaxad u ahayn deganaanshaha iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe الأوسط الأمم المتحدة نفس الشيء موقفها qaramada midoobay saas oo kale ayay ku baaqday هذا يعني بأن المسرح مهيأ لتدخل عسكري ربما لاحتلال عسكري haddaba arrintu waxay u muuqataa mid u furan in ay saddexda wadan ee imaaraadka Bahrain iyo Sacuudigu ay faragelin militari oo toos ah ku sameeyaan dalka Qatar لا أستغرب أن نصحو في يوم قريب على الدبابات الأمر السعودية والإماراتية والمصرية هناك قوات lamana yaabayo runtii in ay maalmo aan fogeyn ay taangiyada Sacuudiga masaarida iyo imaaraadku ay isku day doonaan inay gudaha u galaan oo qabsadaan wadanka Qatar في أبو ظبي ودبابات مصرية في أبو ظبي أن نصحو في يوم من الأيام على هذه الدبابات وقد اقتحمت الدوحة ماذا سيكون؟ نحن نعرف قطر دولة صغيرة waxaynu ognahay dalka Qatar inuu yahay wadan yar هذا يعني أنها لكن ciidamadeeduna aanay badnayn لن تدافع عن نفسها taa macnaheedu ma aha inaanay difaacin wadankeeda كبيرة الظرف خطير جدا arrintuse waa mid aad khatar u ah والشعب القطري هو oo marba marka ka dambaysa ka sii xumaanaysa المتضرر أيضا يعني dhibaataduna waxay soo gaaraysaa shacabka dalalka khaliijka كان يقول نحن شعب واحد وأمة واحدة muddo dheer waxay dadkaasi aaminsanaayeen inay kali yihiin ummad kaliya oo mandaqad kaliya degan طلب من القطريين أن يغادروا البلدان كانت تعتبر نفسها خليجية sidee haddaba suuragal ku tahay in Qatar laga dalbado inay dadkeedu ka baxaan wadamo ay dadkooda aaminsan yihiinba in ay dhulkoodii oo kale yihiin